السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يال إذا لهانتين بقى ميل بو أجوكتان كسو دوابا قد بدأ قرن شوق نيوز وركان أتكو داود تنوحا كبدا دولة فدرالka Soomaaliya ayaa war ka soo saartay fargelinta siyaasadeed iyo midda amni ee Kenya ka wada Soomaaliya sarkaal ka tirsan shabaab oo ka baxsaday xabsi ku yaalo dalkaasi Uganda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ciidamo dheeraad iyo hub geysay gobolka Gado dhinaca kale maamulka Jubbaland ayaa ka hadlay qabsashada ciidamada dowladda Soomaaliya ee degmooyinkaasi balad Xaawo iyo Doolow oo ka tirsan gobolkaasi Gado oo shalay si buuxda ula wareegeen ururka al-shabaab waxa ay sheegteen dilka nin ganacsada muuska iibiyo oo lagu dilay magaalada Muqdisho qodobada wararka caalamkan waxa kamid ah Nancy Pelosi ayaa jarjaxday warqad uu u dhibay Trump kadib markii uu salaan ka qaadi waayay qodobadaasi qodobo kale ayaa warkeeni ku daawan doontaan markaana u diyaar garooba warkeeni oo faahfaahsan markale daawaday isku soo laabasho haboon hadii uu yahay markii ku goorayso channelkiga soo boqoto fadlan waxaan ka codsanayaa inaad subscribe noo saarto gambalka furto si uu ku soo gaaro wararkii u dambeeyay Soomaaliya aan ku bilaabo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa war saxaafadeed ay ka soo saartay digniin culusna u dirtay dowladda Kenya dowladda Soomaaliya ayaa war saxaafadeedkani ka soo saartay kuna sheegtay inay ka xun tahay fargelinta siyaasadeed iyo midda amni ay dowladda Kenya ka wado gudaha Soomaaliya iyadoo Kenya ugu digtay in ciidamada ka jooga Soomaaliya ay qaybta ka ah howlgallada Amazon aysan u adeegsan fargelinta siyaasadeed ee dalka qalqalgelinta amniga markaana dalka Uganda xubin ka tirsan kooxda al-shabaab ayaa ka baxsaday xabsi ay maamulayeen ciidamada booliiska Uganda ninka baxsaday ayaa lagu magacaabay jiray Abdulqaadir Maxamed Sandir iyo shan kale oo Soomaali ah ayaa lagu sheegay inay qorsheynayeen sanadkii 2014 weerar argagixis ay ku qaadaan xarunta baarlamaanka Uganda Ice Mall iyo Jaamacadda Makerere iyo laba gobol oo kale oo ku yaalo magaalada Kampala ila muhiim oo ka tirsan booliiska Uganda ayaa diiday in magacooda ay la shaaciyo ayaa sheegay ama laga soo xigtay in Abdulqaadir Sandir uu 10 maalmood ka hor uu ka baxsaday xabsiga booliiska ayaa Sandir ku haya xarun qarsoodi ah oo ku taalo gudaha magaalada tan iyo markii loo soo xiray sanadkii 2018 kadib markii maxkamadda sare ay laashay eedeyntii argagixis ee loo haystay isaga iyo xubno kale ilaa iyo hadda waxa ay sheegayaan in la raadinayo Sandir iyo sidoo kale baaritaan lagu bilaabay sida uu ugu baxsaday xarunta ay ilaalinayeen ciidamada amniga ila wareegto ayaa waxa ay ka gaabsadeen inay shaaciyaan xarunta uu Sandir ka baxsaday Bolina Maya oo ah ku-xigeenka afhayeenka booliiska ayaa diiday in ay ka hadasho dhacdadaani markaana gobolka Gado ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan xooggan ka wado gobolka Gado ciidamada oo shalay gilinkii dambe la wareegay degmooyinka balad Xaawo iyo Doolow oo hore gacanta uga hayeen ciidamada Jubbaland ayaa dhaqdhaqaaqyo ay ka wadaan si weyn looga dareemaya gudaha gobolkaasi Gado dowladda federaalka Soomaaliya ayaa saaki ciidamo dheeraad ah iyo gaadiid dagaal iyo hub geysay gobolkaasi Gado iyadoo diyaarad sidii ciidamadaasi qalabka militariga ay saaki ka degtay garoonkaasi diyaaradaha Doolow dowladda federaalka ayaa intii aysan la wareegin degmooyinkaasi Doolow iyo balad Xaawo ciidamo badan iskugu geysay degmada Luuq iyadoo ciidamada tiradooda lagu sheegay ilaa iyo 2,000 oo askari ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay geysay gobolkaasi Gado ayaa la sheegay in qorshahoodu uu yahay in al-shabaab ay ka saaraan gobolkaasi Jubbada Dhexe balse waxa jira warar kale oo sheegayo in qorshahaasi uusan ahayn balse ay jirto ujeedo kale oo ay ka leedahay dowladda federaalka Soomaaliya markaana magaalada Muqdisho kooxda al-shabaab ay ka dagaalanto gudaha Soomaaliya ayaa sheegatay mas'uuliyadda dilkaasi xalay magaalada Muqdisho lagu geystay nin ganacsada ah ninka xalay lagu dilay degmada Dharkeeley gaar ahaan suuq Boole ayaa lagu magacaabi jiray Loola Abukar waxaana uu ahaa ganacsada aan ka ah suuqaasi isagoona iibin jiray muuska saacado kadib dilkaasi kooxda al-shabaab ayaa sheegatay in ay iyada fulisay dilkaasi waxaana ay sheegtay in uu marxuumkaasi Lowle uu ahaa sarkaal ka tirsan nabad sugidda dowladda Soomaaliya gaar ahaan qaybta dharka cad sidoo kale al-shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda dil kale oo xali ka dhacay degmada Hilowa inkastoo aysan faahfaahin ka bixin waxa uu ahaa iyo qofka ay dileen nabad sugidda dowladda Soomaaliya ayaa ka hadlin sheekashada al-shabaab iyo xitaa ninka la dilay ee sarkaalka iyada ka tirsanaa mana jirto sidoo kale ila madax banaan oo xaqiijin karta in marxuum Hilowle uu ka tirsanaa nabad sugidda dowladda Soomaaliya kooxda al-shabaab ayaa dilal joogto ah ka fuliso magaalada Muqdisho waxaana inta badan beegsataa xubnaha kala duwan ee haataba ka tirsan dowladda Soomaaliya markaan waxaad ku soo dhawaataan waxaan soo gaarnay warkii caalamka xiisadda siyaasadeed ee ka alorsan madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump iyo afhayeenka
aqalka Congress-ka Nancy Pelosi ayaa meel xun gaaray waxaana hadal haynta ugu badan warbaahinta caalamka ay noqotay dhacdo labadaasi mas'uul dhaxmartay madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump ayaa khudbad ka horjeediyay aqalka Congress-ka waxaana markii uu khudbadaasi dhameystay arin dad badan ay la yaab ku noqotay dhaxmartay Trump iyo afayeenka aqalka Congress-ka Trump ayaa markii uu khudbadaasi dhameeyay isaga oo gacanta ku hayay labada nuqul oo kamid ahaa khudbadii uu jeediyay ula soo dhaqaaqay goob ay fadhiyeen madaxweynaha ku-xigeenkaasi dalkaasi Mareykanka iyo afayeenka aqalka Congress-ka Nancy Pelosi ayaa markii warqadaasi ay ku qornaayeen khudbada uu u dhiibay Trump u taagtay salaan hase ahaatee madaxweynaha ayaa iska indhatire kana dhaqaaqay waxaana ay taasi keentay in Nancy ay jeexdo warqadihii uu Trump u dhiibay afayeenka ayaa markii ay warqadahaasi jeexday ku hordaadisay miiska ay fadhiyeen iyada iyo madaxweyne ku-xigeenkaasi waxaana ay wajigeedii laga dheehan karay caro iyo in aysan ku qanacsaneen sida uu la dhaqmayo Trump dagaalkani siyaasadeed ee ka dhaxeeya Trump iyo afayeenka aqalka Congress-ka ayaa ka kala tirsan labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga ayaa meel xun sii gaarayo lamana ogo waxa uu ka qabo sharciga Mareykanka ficilada ay labadani mas'uul ku dhaqmayaan intaan ku dhan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka aad ka daawaneyseen channelka Qaranjoog News fadlan hadii uu yahay markii kugu horeysay channelkeena aad soo booqato fadlan subscribe noo saar gamla kana furo si uu ku soo gaaro wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka mahadsanid